بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan dilhaantii madaawadayaal saaxiibayaal halkani waa bartaan YouTube ka kuleenahay waanigo Axmed Nur Suufi taariikhdu daawadayaal waa 25ka bisha May sanada 2022 waa khamiis ku soo dhawaada wararkeena qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan xilligan waxa kamid ah ayraahday waa arbaco dabcan khamiis ayaa soo galaysa Britole qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan xilligan waxa kamid ah ismaamulka canfarta ee deriska la ah deegaanka Soomaalida ama dhulka Soomaali galbeed oo weerar ku soo qaaday magaalada Candufo taasoo ah goobtii ugu dambeysay oo ay rabaan inay qabsadaan iyagoo hore u soo qabsaday magaalooyinkii kala ahaa Cadeyti iyo waliba Garbaciise halkaas oo ay ku dileen boqolaal qof sidoo kalena dad badan ay ku barakiciyeen maamulka Soomaali galbeed ama dawlad deegaanka Soomaali galbeed oo aan u diyaarsanayn ka jawaabida duulaanka joogtada ah ee canfarta ku hayso shacabka gobolka City ku dhaqan hadii si kale aynu u dhahno hal beel oo markaasi lagu wado iyadoo hubkii dawladda Itoobiya loo adeegsanayo dhibaato adag lagu hayo waa beelweynta Ciise iyo fariin aynu u dirayno maamulka deegaanka Soomaalida ayaa wararkeena ku daawan doontaan sidoo kale daawadayaal waxa wararkeena ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliya cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay beegsiga iyo weerar uu ku qaadayo madaxda maamul goboleedyada ee markaasi taabacsanaa madaxweyne Farmaajo ee kala lafta Green qorqor Cali Guulaaw iyo waliba Umar Firish gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidanka iyadoo loogu hormaray weerar lagu qaadayo Cabdicasiis lafta Green daawadayaal maxay ka dhigan tahay arintani maxay shacabka Soomaaliyeed iyo Xasan Sheekh Maxamuud dhexdooda ay dhigi kartaa maadaama dhawaan uu ka codsaday madaxweyne Farmaajo inuu dadka Soomaaliyeed uga dalbo taageeradii iyo heshiiskii la islaha la gaaro ma isdhigi karnaa uu buray iyo saraakiisha kale oo taliyooda ay Farxaan Qarool ay kamid yihiin oo weerar culus uu ku yahay sidoo kale xilal uu magacaabayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu sheegay kuwa uu dhaawac culus ugu geysanayo siyaasiyiin oo aaminsan yahay in lool culus ay la gali karaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo uu xil miina camala uu dhiibay rabadaawadayaal iyo arintaas oo looga digay Sheekh Shariif mustaqbalkiisa siyaasadeed ee soo socda maadaama uu nin dhalinyaro ah marka la barbar dhigo madaxda kale soo afjari doonta xil ay marwe adna aadan hayso oo loo dhiibay raba isagana xil la mid ah sidaas ayaad wararkeen ku daawan doontaan ka hor wararkeena fadlan caawiyo wiilka yarka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalayga Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan gudaha iyo dibadba ilmaha yarka waa ilmo yar oo 2 sano xanuunsanaya soondo ayaa wax lagu siiyaa 2 sano oo xaaladiisu sida ay tahay daawadayaal waana la tacaalay wadankana waxba loogama qaban karo sanka ayuu ka qaataa tubadaas ayaa ku xiran daawadayaal fadlan qofkii awooda oo in wax tar awoodana ha ka qayb qaato nuunaha yarka si caafimaad dibadda loogu helo kharashaadka noloshiisa sidii dad badan hore u soo caawiseen caawiya lambarka shaashada ku qoran Jaamac Cabdi Cali akoon ayaa loo sameeyay lambarkaas ayaad wax ugu tuuri kartaan daawadayaal qofkii xawaalada u dhigayna magaalada Gaalkacyo ha ugu hagaajiyo iyo lambarka shaashada ku qoran iyo magacaas qofkii aan waxba u awoodin ha u duceeyo in Ilaahay uu caafimaad siiyo nuunaha yarka isaguna waa dhibaataysan yahay waaridkiina way ku dhiban yihiin waana mahadsantiin واتاي فضلن ka qayb qaata gurmadka wiilkaas sidoo kale waxaanu idin xasuusinaynaa in barteena YouTube ka tiraahdaan subscribe gabaleelka furtaan muuqaaladan aan sii share gareysaan si aad u heshaan muuqaalo iyo warar xaqiiqda ku saabsan waataay ku bilowno marka hore aynu ku bilowno daawadayaal warbaahinteena marka hore ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayay gaarka ka haysaa haday dhul tahay haday dad tahay mana ka soo waranaano kaliya Soomaaliya ama Somali Republic oo koonfur waqooyi ah laakiin waxaanu ilaashanaynaa mar walba guud ahaan ummadeena Soomaaliyeed ilaa iyo Dirdhabo ilaa iyo NFD kan jooga ilaa iyo Djibouti haduu Allah wada raali ka ahaado ummadda Soomaali weyn ayaana warbaahinta aan ugu shaqeynaynaa waata aynu ku bilownay daawadayaal canfarta oo haatan xoogaa ka nasatay duulaano culus oo ay Tigray ku soo qaadeen dhawaan afkan ay ku jabiyeen deegaano badan kaga qabsadeen balse kadib markii xabad joojin lagu dhawaaqay deegaanada inta badan saga baxeen meelo yar yar oo ay ku harsayeen marka laga yimaado ayaa haatan waxay markii xoogaa nasiina ay heshay ay dagaal iyo duulaan aad culus ay ku soo qaaday dhulka ama deegaanka Soomaali galbeed ayay ku soo qaaday gaar ahaan gobolka City deegaano hoostaga gaar ahaan deegaanada Candufo Cadeyti iyo waliba Garbaciise oo ay hore uga haysatay Cadeyti iyo Garbaciise oo laba magaalo ah meelo istiraatiiji ah ku yaalay isla markaana uu laami marayay isla markaana ay dad badan ku xasuuqeen ayay haatan waxay ku wajahan tahay magaalada Candufo
deegaan dhul daaqsin oo aad u ballaaran fiican ayay daawadayaal ay duulaano culus ay ku wadaa waxayna rabtaa magaaladaas oo ah magaalada ugu dambaysa oo rabto inay qabsato inay la wareegto haddaba dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka City gaar ahaan Beerweynta Ciise dhalinyaro ka soo jeeda oo iskood isku abaabulay ayaa iyagu duulaano aad u adag oo markaasi ka hortag ah iyaguna la galaya canfarta laakiin doorkii maamulka Soomaali galbeed ayaa meesha ka maqan walow ay joogaan qaar ka mid ah furimaha gaar ahaan aaga Candhuufo ay joogaan ciidamo aan badnayn oo liyu boolisa haddana waxa amar ma haystaan inay dagaalada qaarkood ay ka qayb galaan waxyaabaha qaarkood ee marmarsiyaha u noqonayay madaxweyne Mustafa Cagjar isla markaana cududaarka u noqonayay ayaa waxa kamid ahaa markii dagaalka Tigreega lagu jiray in Abiy Ahmed uu ka codsanayay marka qaarkood hadii furin canfarta oo dagaal la furo inay dhici karto in ay Tigreegu ay ka faa'iideystaan arrintaasi canfartuna ay la saftaan Tigreega laakiin taasi hadda way dhamaatay oo xabad joojin ayaa la galay dagaal cusub oo hadda kadib qarxa ma ahan ma jiro wax kale canfarta ayaa lagu eedeeyay inay adeegsanayaan tawaangi iyo hub culus oo ka mamnuuc ah ciidamada deegaanka Soomaalida iyo kuwa canfarta iyo kuwa kale deegaanada amxaarada iyo oromada kuwaas oo loogu talagalay kaliya militariga Ethiopia inay adeegsadaan fariinta ay baaqeen u direen shacabka Soomaali galbeed ayaa waxay tahay maalinba hadii aad eegtaan qaybna ka qaadanayo ama oramaha qaadato ama canfar qaadate maalinta dambe waxa la isugu soo gali doonaa inta yar ee hartay waxaana waajib idinku ah maadaama hore oramada dhul ay ka qaadatay dhulkana si khalad ah ugu saxiixay canfarta ugu saxiixay Cabdi Ile xilligu joogay 2014 inaad ka dhiidhisaan ka kacdaan canfar oo milyan ka hooseysay idinka oo 10 milyan ku dhawaada inay dhulada ka qaadato ayaa ceeb inagu ah ummadda Soomaaliyeed ahaan ama inaga qaadato waxaan idinka codsanaynaa inaad dadka shacabka ee ku dhaqan halkaas la garab siiyo si gaar ah xukuumadda Soomaali galbeed ee uu hogaamiyo madaxweyne Mustafa Cagjar waa dhamaatay waqtiga aad ka aamusnaan lahayd dhiigga shacabka ee daadanaya waxaana ka codsanaynaa in maadaama mid kamid ciidamada ugu xoog badan ay Soomaalidu ay leedahay Soomaali galbeed in aad fasax u siisaan inay cagta mariyaan kooxaha canfarta hadii ay jooji waayaan duulaankay ku banaysteen dhiigga dadka Soomaaliyeed waa tahay daawadayaal qodobka marka halka uga soo gudubno ilaahay waxa weeyaan cadowga ha ka qabto muslimiin ayay sheeganayaan laakiin muslimiin waxba kama oge waa tahay inuu ku sii socono warkeena daawadayaal koob iyo 23 bishan oo ku beegnayd Isniin ayay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si toos ah uu xilka ugu wareejiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si toos ah xilka loogu wareejiyay goobtii waxa laga jeediyay khudbad u ekeyd in ay madaxdu iscafiyeen sidoo kalena ay gacmaha isqabsadeen wada shaqayn ay ka dhaxay doonto wixii hadda ka dambeeya baaqayu madaxweyne Farmaajo u diray shacabka Soomaaliyeed oo ah in la taageero madaxweynaha sidoo kale waxa uu sheegay inuu dhankiisa ka kaabi doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo calool furnaan muujinayay ayaa isaguna muujiyay inuu diyaar u yahay inuu taageero ka rabo marka koowaad shacabka Soomaaliyeed maadaama isagu madaxweynuhu yahay dardaaranka madaxweyne Farmaajo iyo waliba hadalkiina uu si adkeynayo waxa uu sheegay in wixii talaa iyo dheeriyana uu weydiin doono madaxweyne Farmaajo sidoo kale waxa ay la dareensanaa ama la islaha madaxweyne Xasan Sheekh siyaasadii hore ka bedelan ayuu keeni doonaa laakiin isagoo 2 casho kaliya xafiiska jooga marka laga yimaado doorashadii 15 May ee uu ku guuleystay oo haatan 10 casho laga joogo ayaa durba waxa soo baxay aarsiga iyo waliba beegsiga madaxdii saaxiibada iyo jaalka la ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii ahaa lahaayeen heer dowlad goboleed madaxda hogaaminaysay hadii ahaa lahaayeen saraakiisha ciidanka iyo sidoo kale madaxdii kala gudsanaa ee ka shaqeynaya xafiisyada ilaa iyo xafiis madaxtooyo ilaa iyo 10 qof ku dhawaad ayuu xilalkii ka buriyay ama ka raacdeeyay kuwaas oo ka shaqeynaya madaxtooyada Soomaaliya kuwaas oo saaxiib iyo jaal la ahaa qaarkood madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana daawadayaal uu ku bedelay xubno kale oo damul jadiida kana agdhowdhow hase yeeshee waxa la yaabka ayaa waxay tahay inuu haatan u janjeersaday dhanka weerar uu ku qaadayo madaxda maamul goboleedyada ee kala ah saddexdii taabacsanay dowladnimada Soomaaliya taageerada shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyagu haystay isla markaana wadamada shisheeye aan u dhoofin ee qarannimadeena xagalka daaca ka ilaaliyay ee kala ah lafta green qorqor iyo waliba Cali Guulaawe oo uu soo raaco Cumar Filish gudoomiyaha ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo warar soo baxay warbaahinteena heshay isla markaana cadeymo dhameystiran loo helay ayaa waxay muujinayaan in kooxda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ay ku abaabulayaan magaalada Muqdisho qorshayaal iyo shirar iyo waliba hadimooyin ka dhanaa madaxweynaha lafta green taas oo ay rabaan inay xilka uga qaadaan aynu idin jilcina halka ayada madaxweynaha lafta green muddo sanad ka badan ayaa u dhiman sanad iyo 5 bilood ka badan waxaana taasi keentay baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa muddaxileedkiisu sanad ka harsanaa dhawaan ayay ahayd markay baas gareeyeen in hal sano loogu daro madaxweynaha sanadka dambe ayay ka dhici doontaa shaqadu daawadayaal hase yeeshee waxay rabaan qorshe hadda ay ku abaabulayaan in ay dhahaan December ayay xilku kaaga eegyahay isla markaana waa ina banaysaa qorshahaasi ayaa waxa horkacaya sida xoguhu ay sheegayaan wadamada Imaaraadka iyo Kenya oo iyagu aan jeclaysan madaxweyne lafta green maadaama uu ku jirin
kooxaha safarada ku bixi jiray sida Dan iyo Madoobe isla markaana wixii la rabay laga adeegsan jiray si doomanadooda ay kula kulmi jireen Nairobi iyo Dubai sidoo kale waxay ka waranayaan hiilkii iyo garab istaagga weynaa u muujiyay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo qorshayaasha xiga ayaa waxay tahay Cali Guulaawe iyo Qorqor laakiin xogaa waxyaabaha hadda ay uga gabanayaan ayaa waxaa kamid ah in markaasi ay rabaan marka hore madaxweynaha Laftagreen inay weerar ku qaadaan kadibna ay markaasi ku xijiyaan madaxda kale haddaba Cumar Filish ayaa asaguna kiiskiisu taa ka fudud yahay marka la eego maadaama digreeto madaxweyne lagu soo magacaabo gudoomiyaha ahna duqa magaalada laakiin xubnahan kale oo dhan baarlamaan ayaa soo doortay wadiiqo sahlanna loo mari karo ilaa baarlamaanadaas la maro baarlamaanadaas in wixii la doono laga yeelana ma sahlana oo gacan ka hadal ayaa markaasi ka dhalan karta arintaasi haddaba daawadayaal taliyii hore ciidanka asluubta ee Soomaaliya Mahad oo markaasi caan ku ah shub taliya shub ayaa waxa uu soo saaray warsaxaafadeed waxa uu shir la yeeshay odayaasha dhaqanka markaasi beelaha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo kula kulmay magaalada Baydhabo waxa uu sheegay in duulaan aad u weyn uu ku soo wajahan yahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay difaac culus in la galo waxa uu sheegay in xamar laga abaabulayo qorshayaal ka dhan ah jiritaanka maamulkaas oo haatanba la kulmay hadimooyin iyo waliba colaado kala gedisan iyo go'doomin deegaanada qaarkood ay ku hayaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab tan ayaa carar dhali karta waa qorshahan ay dimacsan yihiin damul jadiid iyagoo sidoo kale raba in maamulka Galmudug ay geystaan xubin ka tirsan xubnaha damul jadiid ee ka agdhow madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud halka Hirshabeellana sidoo kale ay la rabaan inay ama ay doonayaan xubin kale oo isla damul jadiid ah dhammaan qorshayaashaas ayaa waxay keeni karaan hadda iyo dagaal hor leh inuu dalku waajaho iyadoo daawadayaal arintaasi ay shacabku isha ku hayaan waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud mudakara ayaa la leeyahay taageerada shacabka Soomaaliyeed ee hore u taageersanaa madaxweyne Farmaajo aqlabiyadoodii oo haatan taageersanaa madaxda maamul goboleedyadan daacadnimada tuhmay in ay ku qaadaan weerar dhan kasta ah oo dhanka baraha bulshada isla markaana taageero aad xoogan ay u muujiyaan waxyaabaha kale oo u horseedi kara inuu dhibaato la kulmayo waxay tahay Ethiopia oo amisom ahaan ugu sugan sektorka Koonfur Galbeed Soomaaliya inaysan u fududeyn in ay adeecaan awaamirta ka soo baxaya xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh oo isagu dhabarka ay isku jeediyeen Abiy Ahmed siyaasad ahaan marka la eego waxa la leeyahay ciidanka amisom hadii uu adeegsadana in ciidamada militariga Soomaaliya uu galiyo way adkaa doontaa si kastoo ahaataba waxay noqoto waa la ogaanayaa laakiin waxa socota xaalad kala badbedel ah oo markaasi damul jadiid lagu bedelayo xubin kasta oo lagu tumayo inay maalin nabadii nolol daacad u ahayd hadii ay shirgaal tahay hadii ay tahay mataqaana madax dawlad goboleed hadii tahay agaasime hadii tahay shaqaale ka shaqeynaya madaxtooyada iyo waliba kuwa xilalka ka hayay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Roble dadka cabsida loo qabayaa waxa kamid ah taliyayaasha gaar ahaan dhalinyarada in si adag loo bartilmaameesto taliyo odawaa ayaa markaasi kamid ah taliyayaasha loo baqayo sidoo kale Farxaan Qaroole oo hore Xasan Sheekh isagoo jeedinaya markaasi khudbad xilliga mucaaradka ahaa Farxaan oo dhiiqada lugaha kala bax uu yiri iyo raggaas inay bartilmaameystaan ayaa kooxda damajidii sidoo kale laga cabsi qabaa oo ay ku bedesho saraakiil kale oo damajidii taas oo xataa isfahanka ciidanka iyo habsamo socodka howlaha shaqo ee lagu difaacayo qarnimada Soomaaliya oo keeni karta carqalad sida ay aaminsan yihiin xeeldheerayaal ku takhasusay arrimaha dawladnimada iyo waliba kuwa la socda markaasi siyaasiyiin oo dhagaha iyo indhaha ku haya araad u dhaga duleela amaba dhagaha u raaracinaya siyaasadii iyo isbedelkii weynaa ee Soomaaliya 5 sano la soo dhaafay iyo sida uu Xasan Sheekh Maxamuud ku dambeysay doon isbedelka haduu talaabooyinka sii wado dhinaca kale madaxweynaha ayaa xilal waraabo taaga magacaabaya kuwaas oo daawadayaal oo shakhsiyaad CV-gooda ku dilayo qaarna uu rabo inay musuqmaasuq ay geystaan haddii ay dhab tahay wararka lagu faafiyay baraha bulshada ee ah in Sheekh Shariif in madaxweynaha hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed loo magacaabayo ergeyga madaxweynaha Soomaaliya oo qaabilsan wadahadalada Somaliland taasi waa siyaasad ka bixid ama ka saarida siyaasadda odayga markaasi loola leeyahay sida la aaminsan yahay waxaana loo arkaa arintan inay tahay hadimo siyaasadeed qorshe ay wadaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo gurubkiisa ayaa waxay tahay Sheekh Shariif loo magacaabo xilkaas qorshahan ayaa laba ujeedo ka dhalan karta oo raggan xilalka ugu magacaabayo hadhow inuu xilalka ka qaado oo haday mucaaradaan uu ka dhigo rag xanaaqsan dabcan oo xilalkoodii waayay amaba uu markaasi iska duday inay noqdaan iyo qorshaha kale oo ah inuu siyaasado markaasi isdiidan iyo inuu waxyaabaha qaar kood dhexgaliyo inuu rabo si uu CV-gooda u gubo waxaana booska uu magacaabayay Sheekh Shariif lagu tilmaamay booska aadna aadan oo iyadoo aan waxba u reeban ummadda Soomaaliyeed walow ay ahayd mar xaaskii hore ee Ra'iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal madaxweyne Somaliland soo noqday Ilaahay u naxariiste haddana kala geynta ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa walow ay tahay hooyo Soomaaliyeed qodobka ayaa warkan ugu dambeeyay